munaasabad ballaaran oo lagu xusayay xuska maalinta AIDS-ka adduunka ayaa waxay maanta ka qabsoontay xarunta hay'adda bisha cas ee magaalada Ceergaabo waxaana munaasabadan oo ahayd mid bulshada gobolka Sanaag lagaga wacyigelinayay aafada cudurka AIDS-ka ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ceergaabo isu duwayaal gudoomiyaha hay'adda bisha cas bahda caafimaadka gobolka Sanaag cuqaal iyo marti sharaf kale oo tiro badan ugu horreynna waxaa munaasabadan xuska ka hadlay gudoomiyaha hay'adda bisha cas Axmed Maxamed Xaashi oo faahfaahin ka bixiyay marxaladaha kala duwan ee uu maro cudurka HIV-ga iyo sida looga hortagi karo waxay naga koobayaan waxa weeye marka la soo koobo xanuunkaasi waa xanuun aan dawo lahayn oo xun oo aafa ah wuxuuna ka dhashaa inta badan galmada xaaraanta marka innaga markeeda horeba xanuunka waxa keenaya way naga xaaraansan yahay marka maanta waxa weeye maalintii adduunyadu uu xusayay wadanisteega innaguna taasaynu rabnay reercadkaabanahay la qabnaa sidaa darteed waxaan leenahay wacdigeena iyo waanadeena iyo xoraahdeeduba waxa weeye in aynu iska ilaalino la iska ilaaliyo nin weyn iyo nin yar gabadh weyn iyo gabadh yar islaan iyo oday mid walba in laga feejigaado xanuunkaa waxaa keenaya aan dawada lahayn sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay xubno isugu jiray bahda caafimaadka gobolka Sanaag isu duwayaal madax dhaqameed halabuuro iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan waxweeyaan inaan macnaha qof cusub inaan xanuunka qaadin waxaan markaa ku gaadhnaataa dadku inay takoorka iyo uqdada ay iska saaraan la isbaaro la is ogaado xanuunka uu joogo ku jira Ceergaabo jooga intaas oo qof baa intaas qof oo dhintay wuu dhowday marka sidaa daraaddeed waxaan soo koobayaa aynu yareyno qaaditaanka xanuunka waxaanu ku qaadi karaa takoorka aynu yareyno iyo naba isbaarno iyo dadkii wacyigelino aad iyo aad xaaladda jirta ee adduunka maanta ka wada jirta aynu noognahay adduunkuna ka jirta laynoo sharaxayay si faahfaahsan oo cilmiyeysan oo intii laynoo sheegay waxa weeyaan ujeedada koowaad waa inta ay ka hadleen weeyaan bisha casanaad bay ugu mahadsan tahay iyo adduunyada qariibka ah ee muddada gaaban ee joognaba waxayna anfacayaa waxa weeye inagoo dariiqa sax ah ee amarkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aynu qaadano gabagabadina waxaa munaasabadaasi xuska maalinta AIDS-ka adduunka soo afmeeray maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay waxa la iskaga ilaaliyo huba waxaan waa cadow waa arrin khatar waa arrin nafgooyeysa ama xumaynaysa waxaan iskaga ilaalinaynaa oo loo badanaa diinta islaamka inuu ka horseedayna ilaahay baa idinka ilaalinaya markaynu xariga ilaahay qabsano dhalinyaradu waa labeentii dalka waa madaxdii berrito waa bii berri iyo hooyadii berri ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu idinka nabadgeliyo arrintaas cudurkan dilaaga ah dee horta ilaahay baa keena cudurka iyo caafimaadkaba waana cudur marka hore inta badan in yaroo si dadban ama si yaroo sahlan oo kale isaga yimaada mooyaane inta badan waa aafo ku timaada ama masiibo ku timaada macaasiyaadka abaa kale u timaadaana waa siyaamii dhakhaatiirtu ay noo sheegeen waxaa laydinka doonayaa dhammaanteenba dad iyo rag iyo dumarba iska ilaaliyo oo diinta islaamka xarigeeda la qabsado waa Barkhad Maxamuud Geedi telefishinka caalamiga ee Soomaaliya News TV magaalada Ceergaabo.